yeelatay dadka kale waxaan aaminsanahay inaan ka farxad badanahay waayo wadankayga inta burbur badnaayo aad baan run ahaantii ugu faraxsanahay wadankayga waana jecelahay inaan mar kasta ka soo baxo waxaan ku noolahay Hargeysa laakiin waan jecelahay wadankayga inaan ku soo laalaabto يعني وأنا قاعدين كروي ودن كيجي أنت بربر كسرنا أو ما أنت اللي يقولي أو كلن كيكوات أو لقى بحي أو دولمات كسمينا رونا هانتي أتبع وفرح سنة ودن كيجي إلهنا بدأ هو تضويل 20 سنة كدب دولة فدرال كأي صوماليا يا كوجولي ستي إن قرون كديار ده هذا عدي مقالة مقدسو أي كردوفتو فلايت سدد شعبه ديارة أوشيان أيانا نقطي ديارة دي وجوه رئيس حلها بينا كقعدة قرون كديار ده مقالة مقدسو wasaaradda duulista hawada ee dawladda federaalka ayaana waxa ay sheegtay inay joogtayn doonto falaadyada habeenkii ee ka baxaya magaalada Muqdisho gudaha garoonka diyaaradaha waxa goobjoog ahaa wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada ee dawladda federaalka wasiirka maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda ugu horeyntii wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Maxamed Cabdullaahi Omar oo halkaasi ka hadlay ayaa shirkadaha diyaaradaha ka codsaday inay habeen iyo maalinba garoonka ku shaqeeyaan si shacabku ay kaga faa'iideystaan darkaysiin maalintii shaqada adigu anaga uu soo boganay dadkeena xamar jooga ayaa waxaan habeenkii ku hooyanaynaa Nairobi insha Allah taala iyo dadka dibadda ooga sii duulay intaba waxaan ku waaninaynaa ama ka codsanaynaa diyaaradaha kale iyagana inay talaabadaasi wax ku oolka shirkadda Ocean ay qabatay in lagu daydo shirkadaasi haddii Ilaahay ka raali noqdo oo habeenkii la kordhiyo diyaaradaha ka baxay meeshan xilliga xajki waad aragteen shirkadda Juba iyo shirkado kale ayaa imaanayeen habeenkii marka laakiin habeenka caawa habeenkii ugu horeysay scheduled flight oo habeen kasta khamiis ah iyo habeen kasta sabti ah halkan ka bixi doono wayna ku mahadsan yihiin shirkadda aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinay